ku dhawaad 20 qofood oo qaba dhaawacyo culus dalkan aan waxba looga qaban karin ayaa saaran diyaaradan oo ah mid military oo Turkigu soo diray waxa kale oo la socday daawooyin iyo dhaqaatiir loogu talagalay in dadka caafimaad daradu hayso ee qaraxii ka dhacay Muqdisho shalay uu saameeyay wax looga qabto safiirka oo la hadlay warbaahinta dawladda Turkigu waxa uu sheegay in dhaqaatiirtu qayb kamid ah ay ku hari doonaan Muqdisho oo ay xaaladda dhaawacyada la sii tacaali doonaan sidaas oo kale kuwa kalena ay diyaaradda inta hawada ku jirto iyana ay la sii tacaali doonaan dadka dhaawacyada ee la saaray Patlamanın büyüklüğünü göz önüne alarak dün Sayın Başbakan'la, Somali Başbakan'la yaptığımız görüşmeden sonra acil olarak Türkiye'den böyle bir hastayı taşımak için uçak talep ettik. kadib markii la arkay baaxada qarax uu leeyahay yaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wuxuu dawladda Turkiga ka codsaday in waxa gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka dhaawacmay dadka dhaawacyada qaba ee Turkiga loo qaaday ayaa ehelkooda qaar kamid ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in dawladda Turkiga ay kaga mahad celinayaan kaalmadooda halkan waxaan u taaganahay dhaawac ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadii shalay uu sababay qayb kamid ah oo maanta loo wado dalka Turkiga oo ay gacan u fidiyeen walaalahayna Turkiga waa kaga mahad celinayaa gacanta ay noo fidiyeen maadaama ay nala qaybsanayaan culays aanan qaadi karin inay nagu garab istaageen uga mahad celinayaa anigoo ah Abuukar Cabdullaahi Maxamed waxaan maanta la socdaa walaashay Maryama Cabdullaahi Maxamed oo shalay qarax musiibaha ku dhaawactay ilaahay waxaan ka baryaa inta ku dhimatay inuu janno firdawsa ka waraabiyo inta ku dhaawacmantay ilaahay waxa uu rajaynayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo si maqaasatay walaashay Maryama Cabdullaahi aan u rajaynayaa inaan Turkiga geeyno wixii caafimaad ah iyo nid wanaag waxaan ka sugaynaa Allah subxaanahu wa ta'aala gabadha waxay wax u gaareen qaybtaan adiga waxa ka dhaceen qaraxa ugu dhacay qaybtaan taanka adiga laftaana xoogaa gabadha wax gaareen marka insha Allah wixii caafimaad ilaahay baa ka rajaynaynaa wixii dadaal waa sameeynaa waxaan u mahad celinayaa dawladda walaalahan ah ee Turkiga ilaahay waxaan leenahay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 16 qofood loo qaaday dalka Turkiga sida daraadeedna caafimaad looga raadinayo halka waxaana dhanka kale uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay waqtigan oo kale iskaashi in shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga walaalanahay dadkii ku guuriyay shalay dhacdada ka dhacday oo aad u foolxumeed ex control dadkaas waxaan Ilaahay ugu baryaa oo waxaan leenahay meeshii ay ku shahiideen in jannada firdawsi Allah ka waraabiyo in sidoo kale inta dhaabacday ee ugu horeysay inta maanta la qaadin Ilaahay iyagoo caafimaadka wadankooda ku soo celiyay inta hartana haduu Ilaahay yiraahdo oo wadanka lagu daaweyn doono qaar ka mid ah ayagan waxaan rajaynayaa Ilaahay caafiyo waxaan rabaa halka inaan ka saxo in tiris dhaafsan ay gudoomiyaha uu sheegay 16 safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka eragaas qalday waa ka 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday waxaa kaloo jirto haduu Ilaahay yiraahdo dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah qaar diyaarad ay ku noqdeen qaarna ilaa 12 halkan ay ku hareen iyo daawooyinkii gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa dhankiisa tilmaamay in dawladda Turkiga ay ku mahadsan tahay garab istaageeda waxaana uu dhanka kale tilmaamay in ay shacabka Soomaaliyeed ka rabaan inay dawladooda garab istaagaan xiliyadan oo kale waxaan rabay halkaan inaan uga mahad celiyo dawladda Turkiga oo mar walba dadka Soomaaliyeed garab taagan marka ay dhibaato la soo gudboonaato sida aad ka warqabtiin laba muwaadin oo Turki ah ayaa laftooda ku geeriyooday qaraxaas foosho xumaa shalay ka dhacay ex control afgooy dawladda Turkiga ayaa ahayd dawladdii ugu horeysay ee u soo gurmatay Soomaaliya markii uu dhacay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka faraha badan ku geeriyoodeen Ali Aadan Muumin goobjoog garoonka diyaaradaha Muqdisho